markana munaasabadii ciida iyo sidii looga ciiday wadanka Malaysia Saciid Cumar ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kuala Lumpur ee xarunta wadankaasi Malaysia. Nabada ciida Soonfureed ayaa maanta si aad loogu wada ciiday dhammaan wadanka Malaysia oo ay muslimiin badan ku nool yihiin isla markaana ah wadan Islaam. Soomaalida ku nool Malaysia ayaa intooda badan waxay ku wada tukadeen jaamacadda Islaamka waxaana kamid ahaa arday iyo qoysas caruurtooda wato oo deegaan ahaan u jooga wadankani. Salaada kadib ayay isugu yimaadeen hoolka jaamacadda oo si aad loo qurxiyay waxaana halkaasi kula hadlay qaar kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo ku baraarujiyay inay dib u xasuustaan dalkooda oo maankan ay ku hayaan. Xafladda kadib oo qaar kamid ah ardayda iyo dadweynihii ka soo qayb galay xafladdaasi lagu maamusay munaasabadda ciida aan mikrofoonka Universal dhaxmarnay ayagoo ehelidooda hambalyo u dirayay munaasabadda ciid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum dhammaan muslimiinta oo dhan qaasatan Soomaalida. waxaan leeyahay farxad ku ciida sanadkiis kalena wadankeeni barwaaqo ah ummadeeni iyo Ilaahay gaajada iyo colaadda uu ka reebay Ilaahay ma gaarsiyo. Anigoo samax ka ahime waxaan iga soo salaamayaa Malaysia ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan si gaar ah waxaan u salaamayaa familkeyga hooyaday iyo aabaheyga ciid wanaagsan. waxaan halkaan hambalyo ciid uga dirayaa muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan caalamka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan gaar ahaan u sii dirayaa salaan eheladeyda oo kala ah sida hooyaday Mari Nuur Maxamed iyo eedayaashay oo kala Qadiijo Cusmaan iyo gabadheeda iyo Shariifo Cusmaan iyo gabdhaheeda iyo wiilasheeda waxaan idin leeyahay sanadkan sanadkiisa ku ciida bashbash iyo barwaaqo. ciid wanaagsan dhammaan anoo jaaniskan ka faa'iideysanaya waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin dhammaan ummadda muslimiinta waxaa si gaar ahaan u salaamayaa familkeyga hooyaday aabbahay walaalay meel walba ku nool yihiin kulli caam wa antum bikhair dhamaantiin ciid wanaagsan. magacaygu waa Ibrahim Daawud Cabdullaahi ku magac dheer Sayfudiin ku nool Kuala Lumpur Malaysia waxaan aad ugu faraxsanahay ciidan aan ku ciiday dalka Malaysia waxaan Soomaalida meel walba joogaan u rajaynayaa ciid wanaagsan waxaan leeyahay ku ciida farxad bashbash iyo baraare ciid wanaagsan. anigoo ah Najmi Sheekh Aadam waxaan halkan ka salaamayaa oo leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan familkeyga iyo asxaabteyda oo ku nool dunida daafaheeda waxaan rajaynayaa insha Allah sanadkan sanadkiisa inaan ku gaarno bashbash iyo baraare. waxaan halkaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan caalamka gaar ahaan familkeyga asxaabteyda iyo intii muuqaalkeyga taqaana waxaan jeclahay maanta oo maalin aad u farxad ah inaan kaga faa'iideysto jaaniskan inaan farxad la qaybsado ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciid wanaagsan ku ciido farxad iyo baraara. Bismillahirrahmanirrahim. magacaygu waa Cabdullaahi Cigaal Qayliye waxaan dhigtaa jaamacadda International Islamic University Malaysia waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta caalamka meel walba ay ka joogaan qaasatan ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay nugula ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan eheladeyda asxaabteyda inta meel walba iga garanaysa inta muuqaalkeyga maqalkeyga taqaana waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiin kullu caam wa antum bikhair. dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ee ku nool Malaysia ayaa maanta si aad u ciiday waxayna ku wada ciideen goob qoray u diyaariyeen ururka ardayda Soomaaliyeed oo halkaas ugu soo bandhigay barnaamijyo wax ku ool ah oo ay kaga faa'iideysanayaan munaasabadda ciida. sidoo kale maalinimada berito ay taariikhdana ku beegantahay 31 Agoosto ayaa wadanka Malaysia waxa laga xusi doonaa 54 guuridii ka soo wareegtay markii xornimada ay ka qaateen gumeystihii Ingiriisiga ayagoo kaliya ay ka horeeyeen Soomaaliya 3 sanadood. Saciid Cumar Universal TV Kuala Lumpur.